sheekoy sheeko sheeko xariir waxaa jiri jiray gabadh yariisa oo nuunu ah oo markaa habeen walba hooyadeed intay soo kaxayso sariirteeday gelin jirtay. gabadh yar waxay ka cabsan jirtay gudcurkay ka cabsan jirtay. waxay jeclaan jirtay mar walba in nalka loo shido. hooyadeed nalka intay u shido, nal yar oo buluuga intay u shido ayay markaa ka tegi jirtay markay seexiso oo buug u akhriso. kadibna waxa weeyaan nuunuugaa yar, gabadhaa yar way seexan jirtay, subaxdiina way soo kici jirtay. maalin baa waxa dhacday hooyadii oo hurudda oo qol kale joogta ayaa korontadii baa dantay. gabadh yaro iyadoo saa u jiifta ayaa waxa dhacday way soo toostay. waxay aragtay inuu gudcur yahay, nalkii uu dansan yahay. dhinacaas daahii bay aragto waxay aragtay daahii oo dhaqdhaqaaqaya aragtay iyo iftiin yaroo ka soo gelaya. way baqatay. waxay istiri waa maxay waxaan, maxaa talo halkan ka soo gelaya, waa maxay waxaan caddaanka ee meeshaa ka soo gelaya. gidaarkii ayaa waxaa ku sawirmayay waxyaabo madmadow. nuunuuga yaraa way baqatay, way cabsatay. waxay ku fakartay inay hooyadeed u qayliso oy hooyo ay tiraahdo. haddana way baqatay, way ahamustay. waxay tiri talow maxaan sameeyaa, waa maxay talow waxa daaha dhaqdhaqaajinaya, waa maxay talow, ma wax baa raba inuu ii soo galo, waa maxay talow. gabadhi yarayd way cabsatay, meeshay gashay, busteedii bay hoos gashay. haddana waxay aragtay daahii markaa agteeda waxaa jiifa bahal yaroo ku ciyaarta maalin walba oo markaa u ekaa xayawaan yariisa u ekaa bjorn oo kale ma garata ama haa. markaa dhabtaysaa u gelisay waxay ku tidhi adigana miyaad baqanaysaa. waxay aragtay isagii gariiraya oo cabsanaya. waxay tidhi wuu kaa yaryahay, waa inaad aamusiisaa, waa inuuna baqan. waxay ku tidhi ha cabsan, waxba ma jiro, anaa ku ilaalinaya bay tidhi, ha baqanin, ha cabsanin. waxay maqashay gabadhii yarayd iyadoo meesha dhabtii ku haysa, waxaa la yidhahdaa boombaladii yarayd ama ciyaartii yarayd dhabtii ku haysa. waxay maqashay albaab furmaya jak. iyadu way cabsanaysay, laakiin may rabin inay tusto boombalahan yar ama nuunuugan yar ama waxan yar dhabta ku hayso inay cabsanayso. may rabin, waxay rabtay inay tusto inay geesiya tahay. sidaa daradeed waxay ku tidhi waan ku tusayaa inayna waxaan waxba ahayn, inay keliya malaha dabayl bas tahay. siday u tusi kartaa markaa? way istaagtay, gacantay qabatay boombalaheedii, daaqadii u dhowaatay, wadnaheedu wuu garaacayay. markay daaqadii u dhowaatay daahii bay saa u taabatay. markay daahii saa u taabatay waxay aragtay wax qabow oo gacanteeda taabanaya. waa maxay waxaas talow? waa hawadii bay tidhi. waxay tiri ma arkaysaa nuunuyo baybis yarow, waxan waa hawadii weeyaan, maaha bahal bay tidhi. saasay wax yar daaha u leexisay. mataqaa allah wixii caddaanka ahaa ee meesha ka soo baxayay waxa weeyaan waa iftiin yar oo bannaanka ka soo gelaya. leydh bannaanka ka jira, nal bannaanka ka jira ayaa meesha kusoo dhacay. waxyaabihii gidaarka ku sawirnaa ee madooba markiiba way qarsoomeen markii daha saa u furtay. markii daha xidhana gidaarkii bay ku arkaysaa, markii daha soo fudhana, markii daha furtana waxa weyn way baaba'ayeen. okay bay tidhi
aniga cabsidii way iga ba'day bay tidhi. Haddaan gartay waxay yihiin. Waxa daaqadda daaha dhaqdhaqaajinayay waa dabaysha. wixii gidaarka ku sawirmayana waxa weyn waa iftiinka daaqadda ka soo gelayay. Okay, anigu cabsida way iga ba'day bay tidhi. adigana baby sow nuunuuga oo cabsidii ma kaa ba'day ayay ku tidhi ciyaartii yarayd ee dhabta ku haysay. maalintaas laga bilaabo gabadhii yarayd ee babyska ahayd ee nuunuuga ahayd waxa weeyaan kamay cabsan jirin gudcurka, kamay cabsan jirin daaqaddu hadday dhaqdhaqaaqayso, daahu hadduu dhaqdhaqaaqayo iyo iftiin yar hadduu ka soo gelayo. gabadhi waxay noqotay gabadh geesiyada oo fariidada. halkaasna waxaa ku dhammaatay sheekadii gabadhii yarayd ee nuunuuga ahayd ee ka cabsan jirtay gudcurka markii dambena geesiyad noqotay.